Bismillahirrahmanirrahiim. Halkan waa nuxurka wararka haddii aad ku cusub tahay daawade ka mid noqo oo nagu bir adigoo la wadaagaya saaxiibada xogaha warbixinadii dhacdooyinka aynu halkan ku baahino. Hadduu Allaweyne u qadaro waxyaabaha daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona kooxda farmaajo oo lagu eedeeyay siyaasad indhasarcaad ah. Waxaan idiin soo gudbin doonaa xogo iyo warbixin arrimaha ku gadaaman oo aanu bidhaamin doono. Sidoo kale waxyaabaha daawan doontaan barnaamij wareedkan aan idinkugu hayno daawadayaal saaxiibayaal waxaa ka mid noqon doona oo aan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamij wareedkan Qeere Cosoble iyo musharaxiin kale oo qaatay shahaadada musharaxnimo ee xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Warbixin ayaan ku eegi doonaa. Deni waa uu niyad jabsan yahay. Waxaan idiin soo gudbin doonaa niyad jabin ayuu kala kulmay xildhibaanada laga soo doortay Jubbaland iyo Puntland. Xogo ayaan ku bidhaamin doonaa. Qodobada iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan. Haddii aad ku cusub tahay fadlan daawade nagu soo biiro ka mid noqo saaxiibada iyo asxaabta sida tooska ugu xiran halkan ee wararka warbixinada iyo dhacdooyinka ka qaata. Mar kale kulanti wacan ayaan hawada idin kale nahay daawade saaxiib aynu ku bilownaa haddaba. Kooxda farmaajo ayaa lagu eedeeyay siyaasad indhasarcaad ah. Cabdirashiid Xaashi agaasimihii hore Heritage oo markaasi sharaxayay doorashooyinkii hore ee dalka ka dhacay iyo tan uu xil ka hayo madaxweynaha xilku ka sii degaya ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Waxa uu Xaashi sheegay maamulka Farmaajo laga sugayay shaqooyin waaweyn oo ay ka mid ahayd dhamaystirka dastuurka dalka, gaarsiinta dalka ee doorasho qof iyo cod ah, iyo in Al-shabaab laga adkaado ama la heshiiyo maadaama ay dhamaynayaan shacabka Soomaaliyeed. Farmaajo waxaa loo markaasi dhiibay dal iyo dad u baahan dib u heshiisiin. Inta isla joogta la isku hayo, inta maqana la raadiyo, in nimanka Al-shabaab ee dadka dhammaynayaahi laga adkaado ama heshiis laga keeno. Waxyaabahaasi ayaa laga sugayay ayuu hoosta ka xariiqay agaasimihii hore ee Machadka Daraasaadka Heritage Cabdirashiid Xaashi. Waxa uu sheegay in Farmaajo iyo xukuumaddiisii ay dadka markaasi geliyeen indhasarcaad, runtiina mana jirto wax ka daran dadkaaga loo daaro filin qiyaali ah. Waa niman aan dhihi karo qalin shubato. Xaashi oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray maamulkii Farmaajo wax kastoo markaasi xumaana uu dadku uga dhigayay wax wanaagsan, taasi oo qayb ka ah indhasarcaadkii uu ku sameeyay shacabka Soomaaliyeed. Falanqeeyahan ayaa kula taliyay dadka Soomaaliyeed in ay soo bandhigaan aragtidooda oo ay la xisaabtamaan madaxda xilalka u haysa, fartana ku fiiqaan kuwa ku fashilmay hogaaminta dalkan si looga gudbo marxaladda jahwareerka ah ee dalku jiro. Cabdirashiid Xaashi agaasimihii hore ee Heritage ayaa sheegaya inuu aragti ahaan aaminsan yahay in aan hoggaanka dalka loo dhiibi karin kooxda Farmaajo oo dalka meel khatar ah gaarsiisay, isla markaana loo codeeyo qof dalka ka gudbiya marxaladdan markaasi xun. Doorashada Soomaaliya ayaa muddo ka badan sanad soo jiitamaysay. Waxaan lagu wadaa in la soo dhammaystiro 15 May oo loo qorsheeyay in la qabto doorashada madaxtinimada Soomaaliya oo si weyn looga wada sugayo. Halkan waa nuxurka wararka daawade. Haddii aad ku cusub tahay nagu biir adigoo ka mid noqonaya saaxiibada iyo asxaabta halkan ku xiran ee wararka warbixinada iyo dhacdooyinka halkan ka qaata. Mar kale kulanti wacan ayaan hawada idin kale nahay daawadayaal saaxiibayaal. Qeere oo ra'iisul wasaare hore ah Cosoble oo xildhibaan ah iyo musharaxiin kale ayaa markaasi qaatay shahaadada iyadoo markaasi weli ay socoto diiwaangelinta musharaxiinta. Guddida qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa si dardar leh u wada bixinaya shahaadada musharaxnimada madaxweynaha cadeynaysa. Sheekh Shariif Xasan Cali Qeere, Daahir Maxamuud Geelle, Cabdilqaadir Cosoble, Cali Cabdilaahi Cali Xasan iyo Bashiir Xaaji Xuseen ayaa ilaa hadda markaasi ka mid noqday xubnihii qaatay shahaadada, iyagoo sii raacay Daahir Geelle iyo Shariif Sheekh Axmed. Musharaxiintu qaar ayaa markaasi buuxin weli shuruudaha la soo bandhigay, taasi oo ay dib u dhigteen in ay qaataan shahaadada musharaxnimada. Warar aanu helin ayaa sheegaya in berito iyaduna ay isdiiwaangelin doonaan musharaxiinta qaar intoodii hartay maanta oo ay markaasi shahaadada qaadan doonaan musharaxiin caan ah. Qaarkood musharaxiinta xilka madaxweynaha u taagan ayaa haysta
amaba markaasi ay haysaa dhaqaale xumo baahsan, taasi oo ay iskaga hayaan sida la sheegay inay tartan ka galaan. Sidoo kale waxaa jirta musharaxiin iyaguna markaasi dalka ka maqan, isla markaana saacadaha soo socda degdeg inay ku imaan doonaan aan xogaa ku helayno, taasi oo waqtiga uu aad u yar yahay. Doorashadan ay dhici doonto Axadda oo ah isbuuca dambe haddii aysan wax isbedelin oo ay markaasi saameyn markaasi muuqan. Xasan Cali Kheyre, ra'iisul wasaare hore Daahir Maxamuud Geelle oo markaasi wasiir hore ah, iyo musharaxiintana ka mid ah Shariif Sheekh Axmed Cosoble iyo xubno kale oo ay markaasi ka mid yihiin Cabdilaahi Cali Xasan iyo Bashiir Xaaji Xuseen ayaa ka mid ah xubnaha markaasi iyagu ilaa iminka qaatay liiskan musharaxnimada ee Soomaaliya. Waa shahaadada musharaxnimo ee xilka madaxweynaha ugu sarreeya Soomaaliya oo ay xubno dhowr ah markaasi daydayayaan. Saaxiibayaal, daawadayaal, hadduu Alle weyne raalli ka noqdo, haddii aynu markaan eegno Saciid Cabdilaahi Deni, waxa uu wajahayaa arrimo dhowr ah oo ka mid tahay in markaasi uu niyad jab xooggan iminka soo wajahayo. Waxaana uu kala kulmay xildhibaanada laga soo doortay Jubbaland iyo Puntland. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdilaahi Deni ayaa niyad jab weyn kala kulmay xildhibaanada laga soo doortay maamul goboleedka Jubbaland iyo Puntland ee uu sida weyn iskugu haleynayay. Sida aanu ogaanayno, Saciid Cabdilaahi Deni ayaa iskugu yeeray xildhibaanada labadaasi maamul goboleed si uu ugu sameeyo qada sharaf iyo inuu kala hadlo doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo la filayo inay dhacdo 15 bishan. Kulanka oo lagu casuumay 80 xildhibaan oo isugu jira xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee laga soo doortay Jubbaland iyo Puntland ayaa waxaa ka soo qayb galay kaliya 33 xildhibaan, taasoo markaasi muujinayso in sidii loo maleegay aanu Saciid Deni taageero uga haysan xildhibaanada labadii maamul goboleed ee markaasi aadka uu iskugu haleynayay. Si kasta oo xaaladdu noqoto, inkasta oo uu kulanka ay ka qayb galeen kaliya 33 xildhibaan, haddana waxaa xitaa markaasi hubeen inay 33daasi ay wada taageersan yihiin Deni. Xubnahan wada taageersan Saciid Cabdilaahi Deni, inkasta oo ay kulanka ka qayb galeen kaliya 33 xildhibaan, haddana waxaa xitaa hubeen inay 33daasi ay wada taageersan yihiin Deni, iyadoo qaarkood ay suuragal tahay inay markaasi qadada u tageen kaliya inay ku ixtiraamaan casuumaadda loo fidiyey. Xildhibaanada diiday inay ka soo qayb galaan qada sharafta uu sameeyay Saciid Deni ayaa la sheegay inay ku kala biireen siyaasiyiinta mucaaridka ah, iyagoo Saciid Deni u arko inuu yahay siyaasi aan fursad fiican u haysan in loo doorto madaxweynaha Soomaaliya, sida ay la wareedyo markaasi noo xaqiijiyeen. Xildhibaanada qaar oo la hadlayay warbaahinta ayaa Saciid Deni ku eedeeyay inuu soo burburiyay maamul goboleedkii Puntland ee loo dhiibay, isla markaana uu iskaga hor keenay qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland. Sidee ku dhici kartaa in siyaasi ku fashilmay hogaaminta Puntland isla markaana colaad ka dhex abuuray amaba ka dhex huriyay bulshadiisa dhexdeeda in lagu aamino masiirka ummadda Soomaaliyeed oo dhan? Runtii waxa kaliya ee aan hubo waa in xildhibaanada ay ku midaysan yihiin inay codadkooda siiyaan farmaajo intii ay cod siin lahaayeen Saciid Cabdilaahi Deni, ayuu yiri mid ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay Puntland oo diiday inaan magaciisa adeegsano. Sida ay qabaan falanqeeyaasha siyaasadda, Saciid Cabdilaahi Deni ayaa markaasi la rumaysan yahay inuu kaliya heli karo 20 ama 30% codadka xildhibaanada laga soo doortay Puntland iyo Jubbaland. Ilaa iyo hadda lama soo sheegin codad kale oo uu ka heli karo xildhibaanada maamul goboleedyada kale. Haddii ay wax u dhacaan sida ay falanqeeyaasha iyo siyaasiyiinta sheegayaan, waxaa meeshaasi ka cad inuu Saciid Deni ku hari doono wareegga koowaad ee doorashada, taasi oo aan niyad jab ku noqon doonin maadaama uu haddaba ogyahay inuusan halkaasi dhaafi karin. Sida markaasi ay leeyihiin xubnaha iyagu sida weyn u dhalisan Saciid Cabdilaahi Deni iyo kaalintiisaasi. Halkan waa nuxurka wararka daawade. Haddii aad ku cusub tahay nagu biiro oo ka mid noqo saaxiibada iyo asxaabta ku xiran, adigoo la wadaagaya saaxiibadaada xogaha warbixinada iyo dhacdooyinka aynu halkan ku baahino. Waxaan idin dhaafnaa idinkaga teganaa sida ayamaanaha la daawadayaal saaxiibayaal.
nabadino.